hortagayaasha googa timaha iyo nafaqayntooda. Strawberry-ga waxaa dhex qooshan fitamiino badan oo uu ka mid yahay vitamin C iyo nafaqooyin kale oo adkeeya salka timaha kana ilaaliya inay daataan. Vitamin C-gu wuxuu ilaaliyaa xididdada dhiigga ay u soo maraan qofka madaxa oo ay ku jirto tintu. Sidoo kale waxaa strawberry-ga dhex qooshan vitamin B oo asna siiya tinta oksijiin, ciridana yareeya hoosna u dhiga daadashada tinta. Ku dadaal inaad cuntid dhammaan berryada sida gooseberry, boxberry iyo noocyada kale si aad u fayadhowrtid tinta. Avocado waa fruutka hogaaminaya markay timaado koridda iyo nafaqaynta tinta. Waxaa ka buuxa fitamiinada B, C, E iyo maadada beta-carotene kuwaas oo koriya tinta adkeeyana. Waxay kaloo ugu deeqaan timaha inay dhalaalaan. Cunidda avocado waa timahaaga oo aad ka taxadartay. Babayga waxaa ku jirta nafaqooyin bixiya tinta kuwaas oo ka hortaga daadashada tinta. Nafaqooyinkan waxay la dagaalamaan agoolka adkeeyana awoodda timaha. Saliidaha laga soo majuujiyay babayga ayaynu suuqa ka soo iibsanaa si aan u nafaqeyno tinta duuduubatay, tin caafimaad qab ah iyo tin ifaysa. Rumaanku wuxuu adkeeyaa salka timaha kana ilaaliyaa timuhu inay daataan. Miraha rumaanku waxay kacshaan ama badiyaan dhumaca iyo geed adayga tinta. Waxaa saliidda rumaanka loo isticmaalaa masaajeynta timaha si ay uga hortagto madax cuncunka iyo adkeynta maqaarka madaxa sare. Moosku wuxuu badiyaa kana ilaaliyaa timaha daadashada. Waxaa dhex qooshan mooska in badan oo ah maadada potassium iyo saliid dabiici ah kuwaas oo soo celiya habdhiskii dabiiciga ahaa ee tintaada iyo awoodeedii leexnimo.